intii uu soo socday ololaha doorashada waddanka Mareykanku arrimaha diintu waxay ahaayeen mawduuc si weyn looga hadlay oo lagu soo qaaday ololahaasi doorashada maalqabeenka u sharaxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump hadaladii uu ka sheegay muslimiinta iyo siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan argagixisada ayaa iyana waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqda warka madaxdiisa si weyn la isla dhaqaaday حسن محمود حسن جامعي وقرن أهنا إمامك مساجد الدعوة وحونا كهاليا سامينتا أي كويشين هذا اللضاسي دادك مسلمين تاها يكونوا الوضن كمريكنكا طبعا مسلمين ترادوا كويا لغتي ورادك كويا لغتي وحاكمد مسلمين تجوكت مريكنكا وكالا إني كفير صدان مركي دورشة اهتماضو معنى دورشة أو تنادى صوصة نوفمبر 8 in ruuxii ay markaasi siin lahaayeen doorashada waa tan culimo badan ay iftootay muslimiinta inay voodaan markay voodaanna ay codka siiyaan ruuxa maaragtay shartiisa ay yar tahay laakiin dhanka marka laga fiiriyo haddaa fiiriso qaanuun ahaan Mareykanka waxaa jira wax la yidhahdo check and balance kaba soo qaad madaxweynimadu ku guulaystay waxaa suurtagal ah Congress-ka oo hadda iyaga ku badan Republicaanka ku badan in lagaga bato saadaalinta socoto hadda waxa waaye in dad badan oo Republican ah ay lose gareyn doonaan ay weyn doonaan kuraasta Congress isla markaasna sanadka markaa fiiriso oo boqolka senators ah hadda iyaga majority ah laakiin saadaalintu waxay sheegaysaa in dimuqraadiyiinta ay majority noqon doonaan marka dii labadaas ay majority ay noqdaan isaga madaxweyne uu yahay boolisigiisa waxa xakameyn doona iyadoo kooban maaragtay Congress-ka dhowr goobood oo ay dadka muslimiintu leeyihiin ayaa waxyeelo loo geystay intii ka dambeysay hadallada siyaasiyiintu ay sheegeen dowladda Mareykankuna waxay xabsiga u taxaabtay dad lagu tuhunsan yahay in ay falalid ku ah muslimiinta ku kacayeen Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis wuxuuna ka warramayaa dhibaatooyinkaasi dhacay حقيقة مركز الفيديو محوها وقت كان دورشة مريكانكا وحال أوراق راحة إني كعلوستها أما كدب بدنتها مركز على سبتمبر 11 كدب صابت أقول بدنا وحوي سياسيين جارهان من كان حزب كان محوها جمهورية أو إنفرد بدن تارجد أما سجوني أو أتاج مسلمين تا أردت أسمع مركز وحي أبورت ديباتوي إنفرد بدن وحي أبورت إن مساجد أنا قلنا هني بلوجستو لسكود إن للجبوت waxay abuurtay mudaaharaad fara badan masaajid hortooda lagu mudaaharaaday waxay abuurtay dadyow muslimiin ah oo xataa la isku dayo gawaarigooda ku jira in lagu gubo waxay abuurtay dad in la laayo muslimiin waxay abuurtay oo kaleeto in hadda aad la socoto magaalo dad fara badan oo dad immigrant oo Soomaali ay degan yihiin niman muddo ka shaqeynayay inay muxuu ahaa dadku meesha deganaayeen iyo macaamiishaadka ay qarxiyaan ayay abuurtay waxay abuurtay xataa inaga lafteena gobolkeena meelo businessyo dad Soomaali u lahaayeen in la gubay ayay abuurtay yani marka arintaas waxay dhalisay hadaladii xilkasnimo la'aanta ahaa hadaladii wax garad xumada ahayd qolooyinka siyaasiyiinta oo qaybo kamid ay sameeyeen inay abuurtay nacayb fara badan maxaa jira markii qofka siyaasiga ah uu ku hadlay erayadan oo kaleeto dadyo fara badan ba eragii markiiba fulinaya yani falalka argagixisada ayaa ah kuwa inta badan lala xiriiriyo dadka muslimiinta ah sida uu leeyahay Qareen Xasan siyaasiyiinta tartamaya qaar kamid ah hadaladooda ayaan kala saari karin muslimiinta iyo argagixisada qaabku u sheegayo oo ah in shacab muslim oo dhan ama diinta islaamka inuu ka dhigo diin argagixisa ah iyadoo ay tahay islaam macnaheedu ay salaam tahay diinu salaam oo shacabka muslimka ah oo macnihiisu uu yahay shacab raaca nabad waayo diintooda ah diin nabadaysan in shacabkii oo dhan iyo islaamkii oo dhan inuu farta ku fiiqo argagixiso ku tilmaamo waxay khatar ku tahay nabadgelyada adduunka that's why generaal badan maaragtay oo Mareykan ah ee dhaxeen ninkan hadii la doorto wuxuu khatar ku noqonayaa xitaa isticmaalka hubka nuclear-ka meel aan loogu talagalin ama ummad loogu talagalin waddanka Mareykanka ayaa ah waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan oo haddana diimo kala duwan aaminsan oo ay muslimiintu ka mid yihiin sidaa daraadeedna ayaa loo baahan yahay buu yiri Imaam Cabdiraxmaan muslimiintu in ay codeeyaan oo ay doortaan qofka anfacaya walaalo dadka muslimiinta ah marka hore waxa muhiim ah inaan dareeno inaan qayb kamid ah bulshada Mareykanka
wadankan Mareykanku dad kala duwan baa degan oo kala diima duwan oo kala dhaqamo duwan annaguna dadkaasan ka mid nahay marka bulshada muslimka waxa laga doonayaa inaan horta ogaano wadankan kala duwan inaan qayb ka nahay qodobka koobaad laba waxa laga doonayaa inaan aad isu habayno oo aad isu abaabulo ayaa la doonayaa waxa jirta ugu soo dhacaysa maamaha Soomaalida oran jirtay ninkan hadalna habartiina wax ma siiso wadankan Mareykanku waa dhab oo haduunan community ama jaaliyad ama ay iyadu is habaynin iyadu is abaabulin iyadu si xooga ay isu nidaameen cidina ma ixtiraamayso cidina muxuu ahaa ma qadarinayso marka inaan isu abaabulo waa wax loo baahan yahay Soomaalidu ay dhaafta geeska qabo yani marxalada hadda aan ku jirno wax weeye uma baahna inaan tiraahdo ma codaynayo qayb kama noqonayo bulshada marka aan codayno bulshada qayb ka noqono la xisaabtano siyaasiyiinta hawshaas muslimiinta la gudboon oo la doonayaa yani muslimiinta ku nool waddanka Mareykanka waxa lagu qiyaasaa tirada guud ee waddanka Mareykanka boqolkiiba 1 inay ka yihiin waxayna ku nool yihiin isteedyo muhiim ah oo lagu loolamayo doorashadan Mareykanka kuwaasi oo kala ah Florida iyo Pennsylvania Maxamed Xaaji Xuseen BBC Minneapolis maalinta doorashada oo talaadada soo socota November 8 in ruuxii ay markaasi siin lahaayeen doorashada waa tan culimo badan ay iftootay muslimiinta inay voodaan markay voodaanna ay codka siiyaan ruuxa maaragtay shartiisa ay yar tahay laakiin dhanka marka laga fiiriyo haddaa fiiriso qaanuun ahaan Mareykanka waxaa jira wax la yiraahdo check and balance kaba soo qaad madaxweynimadu ku guuleystay waxaa suurtagal ah Congress-ka oo hadda iyaga ku badan Republicanka ku badan in lagaga bato saadaalinta socoto hadda waxa waaye in dad badan oo Republican ah ay lose gareyn doonaan ay weyn doonaan kuraasta Congress isla markaasna sanadka markaa fiiriso oo boqolka senators ah hadda iyaga majority ah laakiin saadaalintu waxay sheegaysaa in dimuqraadiyiinta ay majority noqon doonaan marka dadyo fara badan baa ereygi markiiba fulinaya yani falalka argagixisada ayaa ah kuwa inta badan lala xiriiriyo dadka muslimiinta ah sida uu leeyahay Qareen Xasanna siyaasiyiinta tartamaya qaar ka mid ah hadaladooda ayaan kala saari karin muslimiinta iyo argagixisada qaabku u sheegay oo ah in shacab muslim oo dhan ama diinta islaamka inuu ka dhigo diin argagixiso ah iyadoo ay tahay islaam macnaheedu ay salaamta diinu salaam oo shacabka muslimka ah oo macnihiisu uu yahay shacab raaca nabad waayo diintooda ah diin nabadaysan in shacabkii oo dhan iyo islaamkii oo dhan inuu farta ku fiiqo argagixiso ku tilmaamo waxay khatar ku tahay nabadgelyada adduunka that's why generaal badan ee maaragtay oo Mareykan ah ee dhaxeen ninkan hadii la doorto wuxuu khatar ku noqonayaa xitaa isticmaalka hubka nuclear-ka meel aan loogu talagelin ama umad intii uu soo socday ololaha doorashada waddanka Mareykanku arrimaha diintu waxay ahaayeen mowduuc si weyn looga hadlay oo lagu soo qaaday ololahaasi doorashada maalqabeenka u sharaxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump hadaladii uu ka sheegay muslimiinta iyo siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan argagixisada ayaa iyana waxay ahaayeen kuwa ku soo noqnoqda warka madaxdiisa si weyn la isla dhaqaaday Xasan Maxamuud Xasan Jaamici waa qareen ahna imaamka masaajidul dacwa wuxuuna ka hadlayaa saameynta ay ku yeesheen hadalladaasi dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Mareykanka طبعا muslimiinta raad way ku yeelatay raadka ku yeelatay waxa kamid ah muslimiinta joogta Mareykanka oo kale inay ka fiirsadaan markii doorashada ay timaado oo ataaga muslimiinta arintaas marka waxay abuurtay dhibaatooyin fara badan waxay abuurtay in masaajid anaguna in dib loo geysto la isku day in la gubo waxay abuurtay mudaaharaad fara badan masaajid hortooda lagu mudaaharaaday waxay abuurtay dadyow muslimiin ah oo xataa la isku day iyagoo gawaarigooda ku jira in lagu gubo waxay abuurtay dad in la laayo muslimiina waxay abuurtay oo kaleeto in hadda aad la socoto magaalo dad fara badan oo dad immigrant oo Soomaali ay degan yihiin niman muddo ka shaqeynaya inay muxuu ahaa dadku meesha deganaayeen iyo macal masaajidka ay qarxiyaan ayay abuurtay waxay abuurtay xataa inaga lafteena gobolkeena meelo businessyo dad Soomaali u lahaayeen in la gubay ayay abuurtay yani marka arintaas waxay dhalisay hadaladii xilkasnimo la'aanta ahaa hadaladii wax garad xumada ahayd qolooyinka siyaasiyiinta oo qayb ka mid ah ay sameeyeen inay abuurtay nacayb fara badan maxaa jira markii qofka siyaasiga ah uu ku hadlay erayadan oo kaleeto labadaas ay majority ay noqdaan isaga madaxweyne uu yahay boolisigiisa waxa xakameyn doona iyadoo kooban maaragtay Congress-ka dhowr goobood oo ay dadka muslimiintu leeyihiin ayaa waxyeelo loo geystay intii ka dambeysay hadallada siyaasiyiintu ay sheegeen
dowladda Mareykankuna waxay xabsiga u taxaabtay dad lagu tuhunsan yahay in ay falal lid ku ah muslimiinta ku kacayeen. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis wuxuuna ka warramayaa dhibaatooyinkaasi dhacay. xaqiiqatan marka la fiiriyo muxuu ahaa waqtigan doorashada Mareykanka waxaa la oran karaa xataa inay ka culus tahay ama ka dhib badan tahay markay dhacday September 11 kadib. sababta ugu badanna waxa weeye siyaasiyiinta gaar ahaan ninkan xisbigan muxuu ahaa jamhuuriga oo in fara badan target ama si gooni